dowladda Turkiga ayaa heshiisyo hordhaca la gashay dowladda midnimada qaran ee Liibiya. heshiiskan ayaa ku saabsan baarista shidaalka iyo gaaska ee badda Mediterranean-ka. laakiinse Giriigga iyo Masar ayaa ku dhawaaqay inay ka soo horjeedaan heshiiska Turkiga iyo Liibiya iyo dhaqdhaqaaq kasta bay yidhaahdeen oo ka socda goobaha lagu muransan yahay ee bariga badda Mediterranean-ka. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Jawish Oglo iyo wasiirka arrimaha dibadda Liibiya Najla al-Manquush oo ka hadlay heshiiska ayaa sheegay in heshiisku yahay mid ka mid a heshiisyo is-afgarad oo dhowra oo dhex maray oo la xidhiira arrimaha dhaqaalaha oo la doonayo inay Turkiga iyo Liibiya ka wada faa'iidaystaan. sidoo kale midowda Yurub ayaa heshiiskan ku tilmaamay inuu dhalin karo colaad iyo iska horimaad. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga Tanju Biljik oo goor dhoweyd hadlay ayaa ka jawaabay hadalka ka soo yeeray midowda Yurub ee ay kaga soo horjeesteen heshiiska Turkiga iyo Liibiya. wuxuuna sheegay in Turkigu uu u arko wax aan macno lahayn hadallada ka soo baxay Giriigga iyo midowda Yurub ee ay ku dhaliileen heshiiska Turkiga iyo Liibiya wada saxiixdeen. wuxuuna intaas ku daray in heshiiska is-afgarad ee dhinaca khayraadka biyaha Mediterranean-ka ay xaq u leeyihiin Turkiga iyo Liibiya cidnana aanay kala tashan doonin. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa bayaanka uu soo saaray wuxuu ku sheegay in diidmada heshiiskan u dhexeeya laba dowladood oo madax bannaan uu ka hor imanayo shuruucda caalamiga ah iyo mabaadi'da asaasiga ee qaramada midoobay. wuxuu intaas ku daray in ololaha uu Giriiggu wado uu yahay isku day xadgudub oo la xiriira xuquuqda sharciga ah ee Turkiga iyo Liibiya iyadoo Giriiggu uu sheeganayo dhulbadeed sharci ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa ugu dambayntii sheegay in arrimaha lagu carqaladaynayo heshiiska Turkiga iyo Liibiya aanay wax saameyna ku yeelan doonin isla markaana aanay soo saari doonin wax natiijo ah. dhinaca kale siyaasiyadda midigta fog ee Faransiiska Marine Le Pen ayaa ugu baaqday wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska inuu xiro gebi ahaanba masaajidyo badan oo ku yaala Faransiiska. waxayna sheegtay in 24kii masaajid ee la xiray 2 sano ee la soo dhaafay aysan ku fillayn. Marine Le Pen oo waraysi siinaysay TV-ga Faransiiska ee la yidhaahdo BFM-TV waxa ay tiri sidan: wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiisku weli ma qaban shaqadii loo baahnaa. wuxuu xirayaa masjid halkan ku yaala kadibna mid kale masjid kale ayuu xirayaa. maya, sidaas looma baahnaa. waa inuu xiraa dhammaan masaajidyada xag jirka ah ee dhulkeenna ku yaala. sidoo kale waxaa loo baahan yahay in la masaafuriyo dhammaan muslimiinta qaata xagjirnimada, xitaa muslimiinta hadalla aan loo baahnayn ka yidhaahda meel ka baxsan Faransiiska waa in lagu daraa. hadalladan bannaanka keenaya xadgudubka iyo nacaybka muslimiinta ma uu jeedin qof shacaba oo caadi ah, balse waxaa jeedisay Marine Le Pen oo ah siyaasiyad mansab sare ka joogta dunida reer galbeedka oo sheegta xorriyad, dimuqraadiyad iyo ilbaxnimo. 2 sano ee la soo dhaafay dowladda Faransiisku waxay xirtay 24 ka mid ah 99 masaajid oo ay baaritaan ku samaysay iyadoo dowladda Faransiisku ku marmarsiyoonaysa la dagaalan xagjirnimo. waxaa weli ka socda Faransiiska nidaam sharciyeed lagu beegsanayo oo lagu xirayo masaajidyo badan kadib codsiyo badan oo la soo gaarsiiyey wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska. dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Britain Liz Truss ayaa sheegtay inay tahay sahnuuniyad weyn oo ay mowqif kasta ku taageerayso Israa'iil. waxayna si cad u sheegtay in UK ay difaaci doonto Israa'iil oo aysan u oggolaan doonin Iiraan inay hesho hubka nuclear-ka. waxayna hadalkan ra'iisul wasaaraha Ingiriisku ka jeedisay xaflad loo qabtay koox lagu magacaabo Conservative Friends of Israel oo ah koox baarlamaani ah oo xiriir la leh xisbiga Conservative-ka ee dalka Britain. ra'iisul wasaaraha Britain ayaa hoosta ka xariiqday
taageerada xooggan ee ay u hayso Israa'iil, waxayna ballan qaaday inay wax weyn ka beddeli doonto xiriirka UK iyo Israa'iil, xiriirkaas oo ka sii xoog badan sidii uu ahaa. waxayna carabka ku adkaysay in Britain aysan marnaba aqbali doonin in Iiraan ay samaysato hubka nukliyeerka, waxayna ballan qaaday inay si buuxda oo daacada u taageeri doonto Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa ku andacootay in Israa'iil iyo Britain ay la kulmayaan hanjabaadyo uga imanaya maamullo kaligitalis ah oo aan aaminsanayn xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Maria van der Sel, oo ah madaxa aqalka Koongareeska Yuhuudda, ayaa ku boorisay dowladda Ingiriiska in safaaradda Ingiriiska laga raro magaalada Tel Aviv loona raro magaalada Qudus, isla markaana magaalada Qudus loo aqoonsado caasimadda gumaysiga Israa'iil. wasiirka caafimaadka Britain Robert Jenrick